بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودي هلكن وحكت دلك قضبضة عدكم مغلي دونتان وركيجا هدو ربي كرالي نقدنا وحقيب كنقنية محوسلك كوهيا دمع السياسة سو كلا دحقلي جنرال صادق جون يسيداس او كلا ميدوغ مشرحين تا هذا وحين كوسو قدبين دونا خلاف سو كلا دحقلي ميدوغ مشرحين تا يا جنرال صادق جون محوسلك كوهيا خلاف كاس ايان idin soo gudbin doona shacabka muqdisho waxa u da'ay roobab dadka iyo dunyada ay ku diirsadeen ciidamo cusub oo ka socda howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM waxa ay soo gaareen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. ciidankaas ayaana waxa la sheegayaa in ay yihiin ciidan cusub. haddaba maxaa ku soo beegay xilligan in ay soo gaaraan ciidankaasi Soomaaliya iyadoo ay ka jirto siyaasad isdiidan? koox bistoolada ku hubaysanna waxa ay dil ka geysteen Muqdisho. waxaan idin soo gudbin doonaa dilkaas cidda ay la beegsadeen iyo kooxdaas halka ay dilka ka fuliyeen. madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdillaahi Dani waxa uu qaaday tilaabo cafin ah kadib markii cafis uu u fidiyay maxaabiis ku xirneed xabsiyada deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaas. waa sidee xaaladda Muqdisho kadib martigelinta siyaasado isdiidan oo ay maalmahan martigelinaysay? waxaan idin soo gudbin doonaa xaaladda dhabta ah oo ay haatan ku sugan tahay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyadoona wali laga dareemayo sidaas oo kale khilaaf siyaasadeed isjiijid iyo sidaas oo kale ciidan fara badan oo lagu arkayo qaar ka mid ah isgoysyada magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. halkan waa xogta dalka. intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qaar ka mid ah qodobadii ugu door corona warkayaga. haatanna ku soo dhawaada warkayaga oo intaasi ka faahfaahsan. haddaba haddii ay tahay booqashadaadii kuugu horeysay ee aad soo booqato bartan YouTube ee xogta dalka, waxaynu si naxariis leh kaaga codsanaynaa in subscribe aad noo saarto isla markaana gambaleelka aad furato si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee mar waliba hela isla markaana haleela wararka iyo warbixinada xogaga gaarka ah aan halkan idinkugu soo gudbinayno. ugu horeyn aynu ku bilaawno daawadayaal, haddaba muxuu salka ku hayaa damaca siyaasadeed ee soo kala dhaxgalay taliyihii hore booliska qaybta guud ee gobolka Banaadir General Saadaq Umar Xasan Saadaq John iyo sidaas oo kale midowga musharaxiinta? warar aynu helayno iyo sidaas oo kale ila xog ogaal ah warar aynu nala wadaageen ayaa waxa ay sheegayaan in damac siyaasadeed iyo khilaaf uu soo kala dhaxgalay General Saadaq John iyo qaar ka mid ah midowga musharaxiinta ila ku dhow taliyihii hore ee booliska qaybta guud ee gobolka Banaadir General Saadaq Umar Xasan Saadaq John ayaa waxa ay sheegaan in ilaa iyo 3 qodob uu ku eedeeyay midowga musharaxiinta. waxa uuna sheegay in kow ay qayb ka tahay in aysan diyaar u ahayn in dagaal toos ah lagu qaado madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sidaas oo kale qodobada uu soo jeediyay General Saadaq John waxa qayb ka ah in Farmaajo haddii uu ka baxo meesha hanaanka saamiga siyaasadeed ee dalka sidii loo wadaagi lahay. sidaas oo kalena filan Soomaaliya waxa u fududaan doona culaysidii kaga imaanaya dhanka General Saadaq Umar Xasan Saadaq John iyo midowga musharaxiinta oo markii hore isku dhinac ahaa. haddii markaas ay soo kala dhex gasho furfurnaasa siyaasadeed, waxa suurtagal u noqon karto in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay si toos ah ugu dhaqan gasho labada sano ee muddo kordhinta ah isla markaana ay u sameeyeen baarlamaanka Soomaaliya. madaxweyne Farmaajo ayaana si toos ah waxa ugu dhaqan galayo labadaas sano ee dhawaan ay ugu sameeyeen baarlamaanka Soomaaliya. madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdillaahi Dani waxa uu qaaday tilaabo cafin ah kadib markii uu cafis u fidiyay qaar ka mid ah maxaabiistii ku xirnaa xabsiyada deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi. madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdillaahi Dani ayaa waxa uu cafis u fidiyay ku dhawaad 66 maxbuus oo ka mid ahaa maxaabiista ku xiran deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi. wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa lagu cafiyay maxaabiistan oo loo haystay eedeymo kala duwan inkastoo magacyadooda aan la xusin. wareegtadan sidaas oo kale waxaa lagu xusay in maxaabiistan madaxweynuhu uu cafiska u fidiyay fadliga bisha barakeysan ee Ramadaan awgeed iyo sidaas oo kale xaaladda caabuqa COVID-19 oo ku soo laba celiyay dalka Soomaaliya. sidoo kale wareegtadan waxaa lagu sheegay in wasaaradda
cadaaladda ay madaxweynaha u soo jeedisay cafiskan ku dhawaad 66 maxbuus ee uu maanta cafiska u fidiyay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdilaahi Dani. geesta kalena faahfaahinno dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan dil ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. dabley bistoolada ku hubeysan ayaa waxay dil ka geysteen degmada Dharkiinley ee gobolka Banaadir. wararka aynu ka helayno degmada Dharkiinley ee gobolka Banaadir ayaa waxay ku soo waramayaan in ruux shacab ah ay halkaasi dil ugu geysteen koox bistoolada ku hubeysan. dilka kadib ayaa goobtaasi waxaa ka baxsaday laba ruux oo bistoolada ku hubeysan isla markaana dilka u geystay sida dadka deegaanka ay noo sheegeen ruux shacab ah. ilaa iyo haatan lama oga sababta ka dambaysa dilka loo geystay ruuxaasi lagu sheegay in uu ahaa shacab. dadka deegaanka ayaa waxa ay sidaas oo kale ku waramayaan in wiilka ay toogteen rag hubeysan xilli uu ku sugnaa meel u dhow aargada Dharkiinley, gaar ahaan meel aan ka fogeyn shirkadda Hormuud, isaga oo u geeriyooday risaastii lagu dhuftay. dadka deegaanka waxay noo sheegeen in raggii ka dambeeyay dilkaas ay goobta isaga baxsadeen. dilka kadib goobta waxaa soo gaaray ciidan ka tirsan maamulka degmada Dharkiinley ee gobolka Banaadir. halkaasna waxa ay ka sameeyeen howlgallo ay ku soo qabteen tiro ka mid ah raggii halkaa ka dhawaa. waxaan la sheegayaa wararku inta ay ku darayaan in goobta isaga baxsadeen kooxihii dilka ka geystay. raggii ka dambeeyay dilka falkaas ayaa goobta si dhaqsi ah isaga baxsaday, waxaana ciidanka halkaasi soo gaaray ay ka qaadeen meydka ruuxii halkaasi dilka loogu geystay. daawadayaal wali waxaynu ku guda jirnaa qaybihii dhexe ee warkayaga. markana cutubyo ka tirsan ciidanka howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ayaa soo gaaray Soomaaliya xilli magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ay ka taagan tahay siyaasado isdiidan. cutubyo ka kooban 144 sargaal oo boolis ah oo ka socda dalka Nigeria ayaa yimid Soomaaliya si ay uga mid noqdaan howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM muddo 1 sano ah. muddadaas oo ay la talin iyo taageero howlgalba siin doonaan ciidanka booliska Soomaaliyeed. saraakiishan booliska ka tirsan ayaa markii ay soo gaareen magaalada Muqdisho iyagoo ka soo duulay caasimadda dalka Nigeria ee Abuja, waxa ay baaritaan caafimaad ay ku sameeyeen saraakiisha wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya kaas oo ku saabsan cudurka safmarka ah ee COVID-19 ka hor inta aysan warbixin siinin saraakiisha booliska AMISOM. isuduwaha howlgalka booliska AMISOM ku-xigeenka taliyaha booliska DCP Daniel Ali Gamble ayaa sheegay in 30 sargaal oo police ah la geyn doono magaalada Beledweyne ee dowlad goboleedka Hirshabelle, halka inta ka soo hartayna ay ka shaqeyn doonaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. shaqooyinka ay qaban doonaan ayaa waxaa ka mid ah saraakiishan in ay ka shaqeyn doonaan adeegyada ilaalinta, tababarka, ka caawinta ciidanka booliska Soomaaliyeed, maareynta ka dambeynta bulshada, saameynta roondooyinka wadajir ah oo ay la sameynayaan dhigooda Soomaaliya, iyo sugidda goobaha muhiimka ah ee dowladda iyo sidaas oo kale munaasabadaha heerka sareeyo. waxay halkan u yimaadeen inay fuliyaan waajibaadkooda AMISOM ee ku saabsan taageeridda howlgalka Soomaaliya, isla markaana ay haatan ay tala siinayaan ciidanka booliska Soomaaliyeed. waxaa jira waajibaadyo cayiman oo gaar ah waliba waajib ku ah in ay qabtaan inta ay halkan joogaan, sida kormeer joogto ah oo ka dhaca isbaarooyinka, waajibaadka ilaalada iyo sidaas oo kale waajibaadka kale ee ku lugta leh. taliyaha qaybta cusub ee la keenay korneelaha guud ee booliska Samuel Ita ayaa sheegay in saraakiisha ay aad u daneynayaan inay bilaabaan gudashada waajibaadkooda si ay gacan uga geystaan horumarinta waajibaadka howlgalka. waxaan u nimid inaan doorkeena ka ciyaarno soo celinta nabadda waarta oo ka dhalata Soomaaliya. waxaan kula tala jirnaa inaan tababarno oo aan la talino booliska Soomaaliyeed si loo hubiyo inay la jaan qaadaan heerka caalamiga ah, ayuu yiri. Soomaaliya ayaa waxaa ku sugan cutubyo fara badan oo ka tirsan howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM,
kuwaas oo ka socda dalalka Afrika qaarkood waxaana ciidamada dawladda ay ka caawiyaan la dagaalanka dhanka al-shabaab. ciidanka howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ayaa wax ay qayb ka noqdeen howlgallo dhowr ah oo ciidanka militariga Soomaaliyeed kula dagaalamayeen xarakada al-shabaab.